بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ka waramanay barnaamijkii ugu dambeeyay waxaynu kaga waranay islaamku sidoo uu kobciyay akhlaaqda si qofka akhlaaqdiisu ay weynaato meelaha islaamku ka kobciyay waxaynu ku sii daranaa yaa kale ka qayb qaata qodobadii badnaayeen soo tilmaanay yaa kale ka qayb qaata akhlaaqda qofku inay toosnaato ama ay leexsanaato waxa ugu horeeya sida culimada tarbiyadu inoo sheegaan qoysku waa weelka ugu weyn ee abuura ama qaabeeya qofka akhlaaqdiisu nooca ay noqonayso qofku soo dadka ula dhaqmayo qofku wuxuu iska ilaalinayo qofku maaragtay sidoo jiritaankiisa qofku isku kalsoonidiisa noqonayso halka dhisasa waa qoyska marka qoysku muxuu ku xaqiijiyaa wuxuu xaqiijinayaa inuu ilmaha yar wada u jeexay markaynu dib qof walo inaga inaga mid uu dib u noqdo waalidkiisu intuu wuxuu sheegi jiray uu garanayaa intay leegtahay oo qofka inaku bariga markaynu imika qof walba markuu dib isku noqdo waalidkaagu isaga ku geeyay dugsi isaga ku daray malcaamad isaga ku yiri salaada tuko haduu doono isagu yaanu tukanin anigu waxaan xasuustaa imika markan yara quraanka markuu aabay quraanka igu daray in quraanka dhigan jiray markuu guriga joogo wuxuu oran jiray quraanka la soo bax marka imikan garanaya markii dambe uu inaadama garanay inaanu quraankaasi aanu isagu dhigan sodonkiisa quraanka oonu garanayn qaybo badan oo kamid ah inta hoose marka laga tago meelihii sare gaaray wuxuu oran jiray la soo bax deedna wiil eegi jiray bal akhri halka markaan xogaa akhri buu jiray halka ku celi marka waxaan moodi jiray inaan qalday deedna waan ku celcelin jiray marka deesan islaayaan lagu qabsanay oo akhri quraanka marka wuxuu kamid noqonay qayb noloshaadii kamid idiguna saayasi kasi badan baad aad kuleetiin marka qoysku aasaas wuxuu yahay jiritaanka qofka ayuu aasaas u yahay qofku fursad qoyskiisu markuu dhisan yahay fursad buu qofku leeyahay ilaahay baa haya qofku in waalidku ka dhinto in maarag haddana ma dayacayo ilaahay qofka subxaanahu wa ta'ala qofka ma dayacayo marka weelka weyn qofku ku jiro ayaa maslaxada qofka lagu xaqiijinaya ahmiyada laga doonayaana waa maxay ilaahay subxaanahu wa ta'ala muxuu qoyska ka doonayaa marka yagleelkiisa inuu ku yagleelmo qoysku qaab qurux badan oo dadku og yihiin oo nadiif ah oo dib ku dhex jirin inuu ku yagleelmo ayuu doonayaa usus sax ah iyo sax ah in qoyska loo sameeyo quraan fara badan buu ilaahay kaga warramay subxaanahu wa ta'ala uu kaga warramay qoyska ahkaamtiisa qorshayaashiisa sida khilaafaadkiisa loo xaliyo suuratul baqara ayuu ilaahay in fara badan iyo quraanka meelo badan oo kale kamid ah ayuu ilaahay kaga warramay subxaanahu wa ta'ala aayadaha uu kaga warramayo dhan wuxuu ka dhigay guurka ilaahay muxuu ka dhigay aayaadka ilaahay aayadku waa maxay cirka bal ka warramay intuu leeyahay waa aayad kamid ah aayadaha ilaahay cadceeda ka warram waa aayad kamid ah aayadaha ilaahay khalqiyada waaweyn in insaanka galaxies ka warramo maaragtay meerayaasha aanu insaanku macluumaad ka haysan ee waaweyn ee abuuran waa aayad kamid ah aayadaha ilaahay kuwaas ilaahay kala mid dhigay guurka iyo dhismaha qoyska ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلهي وحده سبحانه وتعالى آيات كيسا وحكمتها إنه يدين أبوري أزواجا إنه إلهي لما أنا يدين كردقي آيات كيسا كمتها ومعجزة ربانية marka halka lagu yegleelayaana inay noqoto ee lagu unkaya inay noqoto mid laga doonayo inuu tarbiyada qofka halka ka soo baxa tarbiyadiisa inuu hagaajiyo nabiguna wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam waashiruhunna bil ma'ruf ninkii maxaa lagu amray qoyskii oo hooyadii madrasadii ugu weyneyd inuu qofku si fiican ula dhaqmo kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati rifqan bil qawaari nabi maxamed wuxuu dumarka markuu inaga hadlayay rifqan bil qawaari ilaaliya buu quraaradaha muxuu uga jeedaa nabigu kaleey salaatu wasalaam quraarada dad ku dhufato wax oo jabto sideed u kabi kartaa kabida kugu adkaanaysa marka qofkii qoyskii maxaa la doonayaa in loo dhibirsanaado oo si uu qoyskii marka dadku soo saaraya ay quality ay u yeeshaan marka halka waxa ka dhalanaysa tarbiyada cid koobaad leh waa maxay
waalidkaa leh waa qoyskaa leh marka qoyskii baa la doonayaa inuu qof qoyskii inuu xil fara badan iska saaro ilmihii aanad cunto iyo cabitaan keliya ku eegin si tarbiyadiisa mustaqbalka u fiicnaato akhlaaqdiisa u fiicnaato in qofka mashaacirtiisa la ilaaliyo ilaahay la baro subxaanahu wa tacaala qiyamka iyo akhlaaqda iyo mabaadi'da islaamka la baro baahiyuhu u baahan yahay qofku la daboolo iyo markaasi cadaalad in loo sameeyo afkaarta cusub ilmuhu sidoo la ilaashado waxaasoo dhammi waxay qayb ka yihiin inuu qoysku u jiro ayay qayb ka yihiin taas waa qodobka labaad waxa qofka waxyaalaha ka qayb qaateen akhlaaqiyaadka kobciyaha ka mid a qofku cidduu xidhiirka la leeyahay bulshadii kale ka qayb qaadanaysa bulshadii kale ayaa ka qayb qaadanaysa oo qofku مثلا أصحاب بعض ليه ده أصحاب تهذا دقن كيجو قريب كم إذا دقن كاجوي هذا هو وضعهنا قريب كم إذا دقن كاجوي حنا بيقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليل قف كده واحد دقن كيسو دقن كصاحبك هذو صاحبك دقن كيسو حين هاي أديكونا قريب كم إذا بعض ليه مركب بلشدي كلا أي نكحرنين أو دن أي أيضنا كم إذا وحيالها سامين يا أخلاق ديني دقن كين معك لو كم إذا مساجد ده كم إذا دور كمساجد ده هدي أنا هين مؤسسات حقيقية أهداف الإسلام كودية تربية يسوون دور كيسوون قبل ما قرن صار برا مساجد ده كم مسؤول كا محل قدونية وحلا قدونية مساجد 10 كبحية كلمة ذا كبحية كتب تلقودية لما أنتوا ذن النقدان قار حقيقية أهداف الإسلام وكانوا كرامة الإنسان يقف كي معركتي إنه شرو علم جي إلا باهيه قف الروح دي سينكر له قاعده لهنونية وعكلو كم إذا waxyaalaha tarbiyadina kor u qaada kamida goobaha kor u qaada kaalmeeya dugsiyada kamida dugsiyadu door weyn bay ku leeyihiin carruurta waynu geynaa iyaga ayaa waqti badan ay la soo joogaan door weyn bay iyaguna leeyihiin waxa kale oo imika inagu soo biiray warbaahinta casriga ah ayaa iyaduna kamida waxyaalaha akhlaaqda ka qayb qaadanaysa oo ilmuhu isagoo gurigiisa dhex fadhiya ayuu hadduu akhlaaq xumo u diyaar garoobo uu si fudud u heli karaa qofku hadduu tu wanaagsan u diyaar garoobana uu si fudud u heli karaa marka maxaa la doonayaa in mujtamacu intuu isku xidho qoyska la hagaajiyo maaragtay bulshada qaybaha kala duwan la hagaajiyo masaajidada doorkooga la hagaajiyo dugsiyada doorkooga la hagaajiyo warbaahintana doorkooga la hagaajiyo intaa marka la isku daro ayaa qofka waxa u soo baxaya intaas waxay caawinaysaa akhlaaqdii wanaagsanayd ee islaamku ka doonayay aqulu qawli hada wastaghfirullah alazim intaas in barnaamijkeena ku joojinaa insha Allah.